guud ahaanba gobolka Sool saaka waxa looga dareeray codbixinta doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland ay ku tartamayaan saddex xisbi ee wadani kulmiye iyo wixii daawadayaal goobahan idin muuqda oo goobaha ay codka ka dhiibanayaan shacab weynaha magaalada Laascaanood oo si habsami ah codkooda u dhiibanaya codbixintan ayaa si nabadgelyo uga bilaabantay degmooyinka iyo tuulooyinka uu ka koobsado gobolka Sool ciidamada kala duwan ayaa iyaguna ka howlgalay ammaanka degmooyinka Taleex iyo Xudun ayaa laga soo sheegay in si nabadgelyo looga dareeray codbixinta doorashada Soomaaliland وكان تليها عيدن كبوليس كقبل كسول قاشان لدحي خليف محمود علي ورفديين ككلها اللي مقالات اللاسعانود سلمر كان يكور بحيها بسمي صعد كالدور الشدة هكا شعب ويرا قبل كسول أو ترى عدبحنتا دور الشدة المدحتوية waxaa magaalada Laascaanood gudaheeda hadda aan ku suganahay la 29 goobood oo laga codeynayo dadka safaf gaadheer ku jiraan waxa way si nabadgeliya oo amni ah oo socota magaalada gaadiidku waad soo aragteen oo waad soo dhaxmarteen oo waan joojinay mid yar iyo mid weynba dad kaliya ayaa lugeynaya dadkuna si nabadgeliya way ku marayaan waa u jeedaa safafkii baa loo taagan yahay nabadgelyadu aad iyo aad u fiican tahay ilaahayna waxa ka rajaynaynaa inuu nagu sii wado dhanka kale shacabka magaalada Laascaanood ayaa dareenkooda ku waajahan codbixinta ayaa maanta ka dhiibanayaan doorashada Soomaaliland ee gobolka Sool ugu waramaya warbaahinta waxaan codeynay si nabadgelyo leh oo barwaaqo leh oo degan ayaa codka magaalada Laascaanood uga socda Soomaaliland ee ugu tartamaya saddexda xisbi ee kulmiye iyo wadan iyo wixii waxaan rajaynayaa in si nabadgelyo ah ugu dhamaan doonto ummadan iyo madaqadana wixii ay dantooda ku jirto Ilaahay subhanahu wa ta'ala musharaxiinta tartamaya kii khayr ku jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda u soo saaro ay dantooda ku jirto aadna u maasantay qoliyada saxaafadda waa Maxamed Bashiir Nuur Greek iyo Farxaan Maxamed Caydiid Ariel TV Laascaanood